shirkan caalamiga ah oo ay ka qayb galeen in ka badan 8 madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenno ka socday dowladaha qaaradda Afrika ayaa ku qabsoomay Hotel Matina Jumeirah ee magaalada Dubai ee wadankan Sultanka Imaaraadka Carabta waxaana shirkan inta badan diiradda lagu saarayay sidii loo maalgashan lahaa wadamada galbeedka qaaradda Afrika waxaana furitaankii shirkaasi goobjoog ka ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda Imaaraadka Carabta iyo hogaamiyaha magaalada Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid ibn Maktoum iyo mas'uuliyiin kale waxa iyaguna geestooda qayb ka ahaa waftigii uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ay socdaalkiisa ku wehelinayeen guddoonka baarlamaanka Somaliland wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda la taliyaha madaxweyne ku-xigeenka qabanqaabiyaasha shirkaasi iyo jaaliyadda reer Somaliland ee wadankan Sultanka Imaaraadka Carabta iyo mas'uuliyiin tiro badan oo ka socday qaaradda Afrika waxaana markii uu shirkaasi soo gabagaboobay oo telefishinkani caalamiga ah ee Hon Cable TV oo wax ka weydiiyay qabanqaabiyaashii shirkaas waxa maanta ka dhacay shir ay isku yimaadeen 8 waddan oo Afrikaan ah maanta waxaan u arrange gareeyay wafdiga ka soo Somaliland kalidood ma ahayn dadkan u arrange gareeyay invitationkan dowladda kale oo Niger ka mid tahay laftooda waan u arrange gareeyay halkan ugu nimid shirka maalgelinta ee West Africa Forum annagana ugu casuumay ganacsatada Soomaalida anagoo ka wakiila aad iyo aad fursado badan oo Somaliland ay ka heli doonto halkan umado badan oo la isugu yimi Somaliland oo maanta ganacsatada doonaysa ganacsatada caalamka waxay dhawaan waxaan halkan u joognaa inaanu arrin ka qayb galno shirka iyo inaanu danaha Somaliland iyo ictiraafkeeda ka shaqeyno lana kulano madaxda badan iyo shirkadaha badan ee ka soo qayb galay shirka siyaasiyiinta aanu ku dhiirino in Somaliland la aqoonsado runtii waa aragtaan ummadii adduunka oo dhan baa meeshan isugu timi Xusaan uu sheegay haddii ay tahay iyo haddii wasiir tahayba votre République de Somaliland. J'espère que dans le mois à venir on va organiser des visites d'état entre le Sénégal et le Somaliland. waxaana gabagabadii madashaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici sidaan qadiyada reer Soomaaliya uga dhicin lahayn iyo maalgeliyaasha caalamiga isku yimidna inayaan tusno ama aan u sheegno in Soomaaliland fursadda Afrika taalato la mid ay taalo ka qiimo badan ay taalo mowqif ay muhiim ku taalo waxaan kula kulannay marka madaxweynayaal iyo wasiiro iyo DGO oo maanta ka socda 8 dal Abdi Nasir Khalid Saeed wararka telefishinka caalamiga ah ee Hon Cable TV Dubai